daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filim su'aal ah idinla wadaagta dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee aynu kaga hadalno aktarada ka howlgala shirkadda Bollywood-ka Tamil, Telugu, Malayalam iyo Bengali iyo dhammaanba shirkadaha dalkaasi India xarumaha ku leh ee filimada ka soo saara hadday ahaan lahayd aktarada ka howlgala producerada, directorada iyo dhammaanba cid kasta oo fanka filima samaynta ee dalkaasi India ku jirta. Daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa Sanjay Dutt oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywood-ka ahna kuwa ugu caansan ahna wiilka ay dhaleen Nagrees iyo Sonu Dutt. Haddaba aktarkan waa Sanjay Dutt waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay aktarada dalkaasi India u dhashay kuwooda marka ay noqoto aktarada jeelka amaba xabsiga muddada badan ku qaatay. Waxa uuna ka mid yahay markii jeel amaba xabsi aktar loo taxaabay la maqlo waxaa qof kasta oo ka mid ah dadka aadka filimada u daawada niyadiisa ku soo dhaco talow Sanjay Dutt iyo shakhsigan maxaa ay ku kala duwan yihiin marka ay noqoto gelitaanka amaba xariga loo geysanayo jilaagan. Haddaba Sanjay Dutt oo muddo ka badan 2 sano ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Mumbai ee dalkaasi India markii uu magaalada Mumbai qarax ka dhacay sanadku markuu 1993 qaraxaasina lagu soo eedeeyay in Sanjay Dutt uu ka dambeeyo. Eedeymahaasi ayaa Sanjay Dutt loo taxaabay waxaanu xabsiga ku jiray muddo ka badan 2 sano kadibna la sii daayay. Ha yeeshee muddo badan ayuu appeal amaba damaanad ku joogay banaanka oo filimada ku sameynayay. Ugu dambeyn sanadkii 2013 ayaa xukun lagu riday waana uu soo dhameystay xabsigiisii. Haddaba jilaagan ayaa markii Salman Khan xabsiga loo taxaabay oo 2 maalmood oo maalintii Khamiista iyo Jimcihii uu ku bariyay ayaa saxaafadda iyo dhammaanba dalka India waxa ay isla kacday iyada oo hadal haynta ugu badanina ay noqotay xabsiga loo geystay jilaagan caanka ee Salman Khan. Sanjay Dutt waxa uu yiri aad ayaan uga xumahay in jilaaga caanka ee Salman Khan xorriyadiisa laga qaaday xabsina la dhex dhigay balse waxaad moodaa buu yiri in arrinta aad loo pompooninayo. Nin 2 maalmood xabsi ku jiray iyo nin 2 sano iyo ka badan ku jiray marka la isu eego aniga intaan ku jiray inta Salman Khan uu ku jiray aad ayay u kala yar yihiin. 2 maalmood ee Salman Khan ku jiray waxaad moodaa in jilaaga caanka ee Salman Khan la dilay oo la daldalay qaylada iyo sawaxanka saxaafadda iyo dhammaanba bulshada dalkaasi India qaabka ay u pompoonayaan ayuu Sanjay Dutt sheegay. Waxa uu yiri annaga muddo 2 sano ka badan ayaan jeelka ku jirnay wax saa u pompooniyo oo ka hadlana ma aysan jirin. Waa ay wada aamusnaayeen buu yiri ma adduunka ayaa isbedelay mise qof kasta oo qalad gala sharciga in la soo taago oo dambiga uu galay lagu qaado ayaa maanta adkaatay oo qofka haddii muctarif uu noqdo oo magac yeesho lama xukumi karo miyay noqotay aniga waa aan kala saari waayay buu yiri. waxaad arkaysaa buu qof kasta oo aad markaasi la kulanto bal ka waran saaxiibka Salman Khan xariga loo geystay ayuu ku weydiinayaa. Wuxuu yiri jilaaga caanka ah ee Sanjay Dutt anigu xabsiga ayaan ku jiray buu yiri balse haddii aan banaanka joogi lahaana waan ogaan lahaa waqtigaasi qaabka ay u hadal hayeen buu yiri saxaafadda amaba bulshada dalkaasi India xariga aniga la ii geystay iyo 2 sano oo aan jeelka ku jiray. waxa uu yiri aad ayaan ugu faraxsanahay in jilaagan xorriyadiisa la siiyo banaankana uu soo baxo balse cid sharciga ka weyni ma jirto. Shakhsi kastana waa la soo eedeyn karaa oo haddii kiiska lagu helo oo ku cadaadana wixii uu ciqaab mudan yahay ayaa la marsiinayaa. Noqon mayso in shakhsiga caanka ama muctarifka ama magaca leh uusan xabsi geli karin ciqaabna aan la marsiin karin oo uu sharciga ka weyn yahay. taasaa ogaadaan buu yiri hadduu qofka actor yahay iyo hadduu shacab yahayba sharciga waa ay u siman yihiin. haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay aktarka caanka ah ee Sanjay Dutt oo ka hadlay xariga loo geystay jilaaga caanka ah ee Salman Khan 2 maalmood ee uu ku xirnaa xabsiga kadib markii lagu eedeeyay 20 sano ka hor 2 deero iyo 2 polo oo uu toogasho ku dilay isagoo waqtigaasi dalxiis u joogay tuulada lagu magacaabo Kankani Village ee dalkaasi Hindiya. haddaba daawadayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaa barnaamijka idin daadinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax halkaad ka daawanayseen waa Saxafi Films. haddaba haddii aadan ka mid ahayn bahda ku xiran Saxafi Films fadlan isku day inaad subscribe tiraahdo kadibna aad gambaleelka taabato si barnaamijyada ka baxa Saxafi Films ay update kugu ahaadaan amaba joogto. fikrigaaga waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta comments-ka ee Saxafi Films. inagoo isku duuban oo bahda Saxafi inta barnaamijkan lamid ku kulmayna daawadayaal waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad gelyo.